فلسطين ماشى وكسر دماشات كي فرحدا إسرائيل جودهدا ضدك وعيتاجين ودوينك يضو ضدك قار قيسس كودا وكو إسرائيل لقى قبصدية أي قار كود حتى أوجين إني نولين إني دنتان قار باقوستي وهذا وحكم دهانين أنت على سود دين كهر لا هذا السياق قيس كيسا تليفون لو جودي بي فرحات غيركي قيسس كقار وعيتاجين ودوينك إسرائيل قاربا وبحيلا تاغن قاربا فرحad ku soo dhaweynaya laakiin sheekada yaab kale dhacday ayaa waxa ay tahay gudaha Israa'iil hadda waxa laga dareemayaa Trump inay u aqoonsan yihiin inuu yahay sida ra'iisul wasaare oo kale ama madaxweyne Trump iyo Netanyahu hadda waa laga caansan yahay baa leeyahay gudaha Israa'iil oo Trump baa ka caansan waxa loo sameeyay magacyada Trump ay wadooyinka Tel Aviv oo dhan lagu qoray oo macnaheedu ay tahay in Trump ay uga abaalhayaan inuu soo daayo dadkooda لكن نتنياهو وسو دين كري واي نتنياهو وحو اسكو داي انو خوog ku soo daayo way shaqayn weysay wuxuu isku dayay hanjabaad inuu ku soo daayo way shaqayn weysay duqayn walba ayuu isticmaalay ugu dambeyn farsamadii Trump ayaa shaqaysay Masar iyo Turkiya iyo Qatar isagoo markaa ay garab ku siiyeen sida isagaba uu sheegay in la soo daayo dadka Israa'iil laga haysto sidaa darteed qoysaska dadkooda ay maqnaayeen maanta cid ay u mahad celinayaan ما أهان نتنياهو إيوا ترامب وايا قيبتا ميشان uga gudbayna qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u galeynaa walaalaha qiimiga leh maanta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka degay Tel Aviv oo si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo dadka qaar ay sawirkiisa wadooyinka la taagnaayeen laakiin markii uu tagay baarlamaanka Israa'iil kaseed oo uu khudbad maagay inuu ka jeediyo maxaa qabsaday muuqaalka idin muuqdo waa xildhibaanadii Israa'iil qaar kamida gaar ahaan laba xildhibaan oo magacooda la yiraahdo Ayman Ode iyo Ofar Asif oo asal ahaan Arab ah laakiin ka tirsan baarlamaanka Israa'iil ayaa Netanyahu darbaxa u soo fileen ku dhuftay way ku mudaharaadeen Trump isma lahayn Israa'iil baarlamaankeeda lagaga dhex mudaharada hal mar baa waxa ku soo fakaday Ayman iyo Ofar iyagoo la soo baxay tabeelooyin waaweyn ay ku qoran tahay xasuuq oo macnaheedu ay tahay Trump sidii uu qaybta uga ahaa wixii ka dhacay Gaza ku eedeynayaan inuu lug ku lahaa dambiyadii loo geystay dadka reer Falastiin dulmina uu ka galay laakiin labadii xildhibaan ee Carabta ahaa qoorta ayaa laga qabtay baarlamaanka Israa'iil waa laga saaray waxa loo adeegsaday awood ciidan iyadoo caadiyan marka ay xildhibaanadu saas oo kala sameeyaan amar baa la siyaa ka baxaya la yiraahdaa markaas kadib ayaa awood loo adeegsaa laakiin labadan xildhibaan isla markii waa lagu qadqaaday waayo baarlamaanku waxa u badan Likud part oo kooxda Netanyahu xisbigiisa iyo xisbiga midigta fog ee Ben-Gvir ayaa ku jira meesha iyo Smotrich ragiisi ama ragga isku mabda yihiin ku jira meesha marka Trump aad baa loo soo dhaweynaa sacab baa socday wuxuu islaam meel laga jecel yahay timid ilaa markuu soo dagayna waxyaal lagu soo dhaweeyay markii uu soo dagayna sawiradiisa meel lagu xariiqay waliba wax nalal waxa la daaray ay ku qoreen thank you ma sanid madaxweyne Trump oo awaal weyn bay dadku u hayaan wax uu garan waayay Netanyahu gartay leeyihiin macnaha Netanyahu gudaha Israa'iil cidna ma aaminsana maanta isagana shalay qudbud jeediyay Netanyahu oo ku qodbaynay uu leeyahay maanta waa maalin taariikhi ah waxa isbuucan bari uu ka jeedo maanta uga waday waxa la soo dhiibi doonaa dadka naga xirnaa waxaynu saas baan sameeynay intaas baan qabanay wixii oo dhan dadka kuma socdaan waxay u arkaan Netanyahu inuu yahay nin ahdaaftii ujeedkii dagaalka Gaza uu galay aan ka run sheegin iyadoo adduunkana lagu eedeynay inuu dambiyo waaweyn ka galay si kastaba ha noqotee walaalaha qiimiga leh dhinaca kale balaan isla eegno shirka ka socda Sharm el-Sheikh ee dalka Masar waxa hadda dhiman oo kaliya qaybtii u dambeysay shirkaas in la saxiixo oo gabagaba ayuu marayaa wajigii koowaad waa la gaaray oo waa la isla saxiixay wajigii labaad ayaa lagu gudo jiraa oo la filayo in uu noqdo wajigii ugu dambeeyay oo dagaalka Gaza lagu soo afjarayo laakiin waxa jira su'aalo waaweyn oo wali aan laga jawaabin oo ay ka mid tahay Gaza yaa xukumaya yaa ka talinayo Hamas miyay ku sii jiraysaa miyay ka baxaysaa Israa'iil samxay damacsan tahay markii loo dhiibo maxaabiisteeda kadib
qodobada ay kuwa kale qaybta dambe ayaad ugu tagi doontaa shirkan Sharm el-Sheikh waxa shir gudoomin doona qaybta u dambayso soona xiri doona Trump iyo Sisi France Spain iyo kuwa kale ayaa ka soo qayb gali doona Turkiga iyo Qatar ay qayb ka yihiin oo hadar budurbo wufuudi ayaa ku soo qulqulayso sheekayab la ayaan idinkaga hayaa Netanyahu azumaadda kansale waan idin hayaa madaxweynaha Faransiiska iyo hadalka uu jeediyay qodobada ay kuwa kale ayaad ugu tagi doontaa marka horese aynu ku yaraa kana walaalaha adigoo aan meel kale waxba ka doonan wuxuu u dhow yahay isbitaalka caanka ah ee Aga Khan University Hospital, Aga Khan Primary School, Aga Khan Sports Club iyo City Park Market. mashruucani wuxuu ka kooban yahay apartments-yo aad u qurux badan waana 2 qol 3 qol iyo 4 qol oo isugu jira fadhi iyo qolka shaqaalaha iyo jiif. guryahani waa kuwa loo nashqadeeyay si heer sare ah oo aan la qiyaasi karin waxaana lagu dhisayaa qalab ay tayadiisu ay wacan Lafisutis wax badan ayuu kaga duwan yahay guryaha kale sida mukayf casri ah oo la jaan qaadaya cimilada jikada waxa ay leedahay qalab lagu filtreeyo biyaha kulul oo nadaafada jikada loo isticmaali karo. haddaba wixii faahfaahintaasi dheeriya kala xiriir nambarada shaashada aad uga jeedo. waa rajaynaya walaalaha qiimiga leh inaad qorateen oo aad la xiriiri doontaan. waxaynu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena fiidnimo balaynu isla eegno waxa ka socda Sharm el-Sheikh intaynu u gudbin madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la sheegay inuu ku amray diyaaradii ula socday inaysan ka degi doonin garoonka diyaaradaha ee Sharm el-Sheikh kadib markii loo sheegay in halkaasi uu imanaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu taas oo markaa keentay in diyaaradii Erdogan ay markaa ku soo deganin magaalada Sharm el-Sheikh isla markiiba inta aysan diyaaradda Erdogan ka bixin hawada Sharm el-Sheikh waxa dhacay wada hadallo ilaa markii dambe la xaqiijiyay in laga joojiyay Netanyahu ka qaybgalka shirka marka oo diyaaradii Erdogan ay dib uga soo degtay ama ay ku soo degatay garoonka Sharm el-Sheikh sida ay ku warantay wakaaladda wararka Turkiga ee loo yaqaan Anadolu. waxaa kaloo la xaqiijiyay in Erdogan uu sheegay in madaxda kale ee ka qaybgalaya shirka madaxeedka in uusan ka qaybgali doonin shirka haddii Netanyahu uu joogo isla markaana uu si toos ah u dib ugu laaban doono Turkiga haddii uu Netanyahu shirkaas ka soo qaybgalo. CNN-ka Turkiga ayaa ku warantay marka laga soo tago wafdiga Turkiga waxaa sidoo kale jira wufuud kale oo ka socota dalal muslimiin ah oo dawladda Masar u sheegay inaysan ka qaybgali doonin shirka madaxweynaha shir madaxeedka raalli ahaada ee Sharm el-Sheikh haddii uu Netanyahu imanaya macnaha madax waaweyn oo dalalka muslimiinta kamida ayaa diiday inaysan tagi doonin shirkaas haddii Netanyahu uu imanayo taas oo ugu dambeyn la xaqiijiyay in Netanyahu uu shirkaas iman doonin waxaana taasi ay muujinaysaa in Netanyahu maanta adduunku uu noqday nin laga faano in lala kulmo iyadoo taas ay jirto sheeko yaab laha adduunka maanta jirto oo laga yaabay madaxweynaha dalka Indonesia Prabowo Subianto ninka la dhaho magacaada si qaldan ugu dhawaaqay kara la gelinaya ayaa lagu waramayaa inuu Israa'iil u socdo waa xilli yaab leh madaxweynaha Indonesia waxayna noqonaysaa markii ugu horeysay oo madaxweyne Indonesia ka socda xilligan uu tago Israa'iil waana dalka ugu muslimiinta badan caalamka Indonesia number 1 dunida ugu muslimiinta ugu badan caalamka Indonesia ku noolyihiin dadka reer Indonesia waxa ka socda qaza aad bay uga xanuunsadeen u dhibsanayaan marka madaxweynaha Indonesia inuu dhaho berrito waxaan ka degayaa Tel Aviv waa sheeko aan la fahmi karin waxa kaloo arintani aad la yaab uga dhigaysa qaramada midoobay khudbadii uu ka jeedinayay madaxweynaha Indonesia wuxuu ku soo xiray salaanta yuhuudda taas oo shalom oo sida assalaamu calaykum aan dhahno oo kala inkastoo isku dhigmin shalom u dhahay marka waxa la yaabay ninkan waxa wado ma la gatay ma balaayo kala wadata lama fahmi karo laakiin wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay xilligan yaab kale ee talaabadan qaaday wadamo badan oo carab laga yaabana isagaaba kun talaaba sii dheeraaday dhanka kale wali waxaynu ku jirnaa wararka ku aadan shirka ka socda Sharm el-Sheikh iyo shir madaxeedka halka ka furmi doono Netanyahu waa la casuumay Abdel Fattah al-Sisi casuumay haddana casuumaadiisii waxa la sheegay in la kansalay oo la joojiyay dhinaca kale madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa lagu waramayaa in uu sheegay inuu diyaar u yahay sida Al Jazeera ay qorayso inuu qayb ka noqdo isbeddelka weyn ee ka socda Falastiin waxa uu yiri waxaynu qayb ka noqonaynaa hanaanka dawladnimo
reer Falastiin inagoo caawinaya PA Palestinian Authority taasoo Israa'iil diiday oo ay sheegtay inaysan ogolaan doonin Gaza in loo gacan geliyo nidaamka Falastiiniyiinta Fatah ee uu hogaamiyo Mahmoud Abbas haddaba Faransiiska wuxuu rabaa inuu qayb ka noqdo shirkan yaa ka qayb galaya marka horta shirkan Sharm el-Sheikh waa gaar oo hadda socdo shir kala jiro oo Faransiiska leeyahay waa ka qayb galaya shirkaas waxaa ku baaqay madaxweynaha dalka Masar Abdel Fattah al-Sisi waana shir uu ugu yeeray in looga arinsanayo sida ciidamo isku dhaf ah oo caalamka ka socda loo geyn lahaa Gaza si nabad ilaalin loogu sameeyo Falastiin nidaam xoogan loogu dhiso dawladaha shirkaas ogolaaday inay qayb ka noqonayaan waxaa ka mid ah Faransiiska Britain Turkiga Qatar Sacuudiga dhinaca kale waxaa ka qayb gali doona Spain iyo kuwa kale oo dhammaan lama garan doono inay ciidamo u diri doonaan laakiin Turkiga wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay ciidamada u qoondeeyay Gaza loo dirayo Hamasna way ogoshahay